waxa uu guuray dalka Sweden isagoo daahan yar waxaana uu halkaasi ku noolaa muddo aad u badan balse 30 sano kadib ayaa waxa uu ku soo noqday dalkiisa waxaana uu abuuray ganacsiga sharikada dhowra sababta ka dambaysa guusha ganacsigiisana waxa uu ku tilmaamay sidani hammi waxaan oran lahaa waa hammi yani maaragtay weligay happy ma noqon weligay satisfied ma noqon always waxaan rabaa inaan dee nafteeda la tartamo oo inaan eegi karo dee how far can I go ka hor guushani uu gaaray Subeer waxa uu kala kulmay caqabado tiro badan oo mararka qaar sababi karayo inuu joojiyo halka uu u socdo balse waxa uu kaga gudbay sidani risqa yani habki ilaahay qulubu kaale habki risqa waa feel garobasa marma laba ma saddex ma anigu imsan feel garobo dib u inta qanacsiga furay yani hirkeli laakiin يعني مركز تا نيدي كمان جبت وواو ذي كنده مرتي وحوض عند عليك كذا قرع مركز رزق هذا never give up بدي ويرتاح مركز الله يقصهم على ده الشخص كتير فنكا وسميه جراس وين بس السوبر يا يسوي شيء سببته وجولستي شركة هني إنه عبورة إنه تحسدني تلذي لا ولا ساعتها واحد سنة سنة كقولتها وأنا مساعد سنة يعني whatever they are تسلسل أداة قناصة أما سبورتز أما موسيقى ولا وحى إلى هاي كوبرة كل سنة تدار بالله سكول عفوا مو يه وحي إلى هاي كوبرة سنة ده بعرشة هاي أو نمبر 1 أنا بتي بعرشة بريتو لما تحتوي على شركة اللي كنت هادي هاي كارواش تاجر الزملاء لو متاجر سنة يا كورني يقول لي شو قال شيء يعني be the best at what you do same thing هذيك حتى أو أبغى بهم بلين يا you do your thing أبغى تاضي لين كذا كجرتا فيل كذا كجرتا حتى لين كذا تاجر تهين there's no traffic jam تاسمع sidoo kale asxaabta waxa uu sheegay Subeer in shaqaalaha ka shaqeeya shirkadaha Subeer ay haatan kor u dhaafeen 20 qof taasina waxa sidoo kale dhiirigelinaysaa in Subeer uu shaqaabuur fara badan u sameeyay dhalinyarada ku nool dalka gaar ahaan kuwa ku nool magaalada Hargeysa fursadaha shaqo ee dhalinyarada dalka oo aad u yar ayaa sababa in dhalinyaro badan ay u safraan dalalka Yurub iyo Ameerika si ay u helaan nolol wanaagsan balse Subeer ayaa isagu aaminsan in fursadaha yaala Yurub ay ka badan yihiin kuwa dalka yaala sababtuna waa tan in the end of the day switch me in the blue way timacad milli isoo badaadka ugu socota marka in the end of the day there's no yani passport yar been shay opportunity ee Soomaaliya yaala wallahi baan New York qolay ama Göteborg magaalada Sweden Subeer ayaa haatan isagu asaasaha shirkado dhowra sida Subeer Real Estate, Subeer Tourism iyo Hooyo oo shirkad danka dharka taasi oo dalka keenta noocyada kala duwan ee dharka dhanka kale Subeer ayaa waxa uu fariintan u diray dhammaan dhalinyarada jecel inay wax ku soo gudbiyaan baraha bulshada sidoo kale qaan ay noqdaan haddaad go'aan gaadhid inaad ku soo biirtid social media wax la karo miiska wax soo dhig markaad miiska wax soo dhigtid bay dadka ku jeclaanayaan wax unique la karo tan ku dari lahaa taana digniin especially Allah walaalaha ay daawan ay aflagaatay fadhaaskeeda iyo niiko iyo Chicago Bulls sababtoo noloshu isbeddelsa shalay anu stage baan taagnaa yo make some noise bala maantana $100,000 ayaa daily ula magacaaga iyo sharaftaada ilaasho beritoole waxaa noqon kartaa xildhibaanad beritoole nin baa ku guursanaya beritoole ubadkaagii baa YouTube ama TikTok dib u eegaya hooyadaydu waxay samaynaysaa so ha eegin ama ha fiirsan viewskan hadda nowgan maanta taagan ee I like your comment in lagu sheekeeyo ha eegin 10 sano kadib ugu dambeyn Subeer ayaa fariintan waxa uu diray qurba joogta la midka ee ku nool dalka dibadiisa dalkii hooyo ku soo noqon dhulkii way ku soo noqon invest garasta
ubadkeeni waxaan uga tagno dadkeeni aan caawino sheekada Subeer ayaa waxaanu ka baran karnaa inay muhiim tahay inaanad isdhiibin si kasta ay u jiraan caqabado kaa hortaagan guushaad rabto inaad gaadho iyo inay muhiim tahay inaad ka qayb qaadato horumarka dalkaaga meel kastoo dunida kaga nooshahay ku xidhno Ayuub Show lana socon muuqaal cusub